wafdigan uu hogaaminayo Qadar Yuusuf agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa markay ka ambabaxeen madaarka caalamiga Cigaal International Airport waxay warbaahinta uga warameen safarka ay ugu ambabaxayaan dalkaasi Jarmalka iyo shirka caalamiga ay kaga qayb galayaan iyo mas'uuliyiinta ku wehelisa shirkaasi oo ka qayb galayo waxaana uu sheegay in shirkaasi ay isugu imanayaan maayara caalami ah oo ka kala socda daafaha dunida isagoo ka waramay ujeedada shirkaasina waxa uu yiri maanta oo bishu tahay 13 bisha tobnaad 2019 waxaan runtii si rasmi ah uga dhoofinaa madaarka caasimadda ee Hargeysa Cigaal International Airport annagoo runtii ku jihaysan wadanka Jarmalka magaalada Cologne oo runtii uu ka dhici doono shir caalami ah oo ay ka soo qayb galayaan in ka badan 400 oo maayar oo adduun weynaha oo dhan daafiis ka iman doona ruuxantii shirkan oo la xiriira arrimaha caruurta haday tahay xuquuqdooda daryeelkooda iyo runtii horumarinta baahiyahooda kala duwan waxa hogaaminayay wafdiga caasimadda marka hore duqa caasimadda maayarku runtii uga baaqday hawlo qaran oo culus awgood wuxuu arigay igmada maayarku inaan anigu marka hore technically ugu jiray invitationka inaan runtii aan roolkii maayarkana qaato wafdigeyguna wuxuu ku kooban yahay runtii anigoo hogaaminaya iyo hay'ado ay ka mid yihiin xubno UNICEF iyo UN Habitat waxaan invitation rasmi ah ka helay sirkaalka ugu sareeya UNICEF iyo maayarka magaalada Cologne ee wadanka Germany waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu shirkaas guul noogu soo dhamaado wuxuu qaadan doonaa runtii muddo 2 toddobaad oo aan filayno in shalaadka ka bishaan dalka dib ugu soo noqon doono ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guulaha aan filayno inaan soo hoyn doono ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogaana waxaan ka codsanayaa maadaama xil culus runtii la xambaarshay inay igu soo duceeyaan aad baad mahadsantiin waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur iyo Cawl Cabdi Kaahin madaarka caalamiga Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.